إذا الهنا بان والسلام يا مرتشاف تقييمها يدوجها بدله أي نسوقني من قرطة بالعمر هنا نرنتي مانتا أو عويسين كان أي نرنتي كوكولاني شركة بودري مايرس ومانتا أي نسوقني من نرنتي أي نهارك معلومات قالنا سيدي أي نؤمر كشر لحي سيدي مانتا نرنتي لنور بحلها قبض في عن أي نؤمر كشر إنه شركة dalkeena Soomaaliland runtii laga hirgeliyay mudane iyo marwada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa sida wanaagsan aad uga soo qayb gashaan rag iyo dumarba runtii shirkaddan Borderi Miles waxay ku taalaa duleedka Hargeysa meel aan ka jirin tuulada la yiraahdo ama degmada la yiraahdo Abaarso dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Hargeysa waxaana dhagaxdigeegii ama daahfurkeegii uu dhacay shirkaddan October 17 2017 taasi oo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya uu daahfurkeedii xukuumaddu ay si weyn uga wada qayb qaateen gabagabada shirkaddan Borderi Miles waxa uu ku dheegan yahay September 2019 xarika jarka oo madaxweynaha qaranka iyo xukuumaddu ay hadii ay nagu simo ay si waafi uga jari doonaan runtii waa shirkad dalkeena ku habboon maadaama dadkeenu ay yihiin dad daqiiqda aad u isticmaala haruur berberana haruurkaasi xooluhu berberana siina kama munaafacadsano laakiin shirkaddani waxay maanta inoo samaysay in haruurkii loo soo baxayay daqiiq loo bedelo oo maanta dad iyo dunya bayna anfici doonto wixii ka soo baxa marka daqiiqda hubada ka soo baxan xoolaha ay runtii iyagu iska leeyihiin oo maanta dad iyo dunya bayna anfacayso sharaxaadka waan geli doonaa waxaan jeclahay marka hore sidii caadaynu waxaan jirtay ama dhaqan ahaanba aanu nahay dad muslina inaynu ku furanno barnaamijkeenan galabta aayadihii qur-aanka kariimka ahaa uu halkan inoo joogo sheekheeni magaalada sheekh maxamed macalin oon kusoo dhaweynayo inuu qur-aanka inoo akriyo sheekh maxamed falyatafadal mashkuura sheekh maxamed aayadaha qur-aanka inoogu fur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ربياتي حسنا لك السيو آياتها قرآن كريم كأهل نجد كوي قرآن فوحنا قرآتي بهي نجدكو آديات مازيها الشيخ محمد معلم آياتها قرآن كريم وافيك مدن iyo marwayba sabrootba xayawaha ku tilmaamay warshadani dalka Soomaaliland qiimo weyn ayay ugu fadhidaan runtii daqiiq ahaan maanta dadkeenu boqolkiiba 80 waxay isticmaalaan waa daqiiqda haddaba sadaba waxay nooga timaada dibadda wali soo iibsana guud ahaan marka waddanka eegto xaafad kasta iyo guri kastana waa laga isticmaalaa dibadda ayaana laga keenaa bakhaaradeena waxaa runtii u badan yihiin oo ay keenaan oo ay ka soo dejiyaan magaalada Berbera boodkeega daqiiqdaas oo dibadaha laga soo iibiyey ama dalalka jaarka nasiib wanaag waxaynu u helnay aqoonyahan dhalinyaro u badan oo reer Somaliland oo maanta loo hirgeliyey in aynu ka maaranno dalalka shisheeye ama jaarkeena ee aynu ka soo iibsan jirnay daqiiqda dalkeena hooyana laga hirgeliyey runtii waxaan jeclahay marka hore sidii caadaynu waxaan jirtay ama dhaqan ahaanba aanu nahay dad muslina inaynu ku furanno barnaamijkeenan galabta aayadihii qur-aanka kariimka ahaa uu halkan inoo joogo sheekheeni magaalada sheekh maxamed macalin oon kusoo dhaweynayo inuu qur-aanka inoo akriyo sheekh maxamed falyatafadal mashkuura sheekh maxamed aayadaha qur-aanka inoogu fur
warshaddan oo iminka dhismahayga sidaan sheegay runtii gabagoo ku dhow yahay sebtembar 2019 daahfurkeeda aynu wada fadhiyi doono ninkino runtii waa mid muhiimadeeda leh innaga iyo jiilasha dambaba aan waa ubadkeena iyo mustaqbalka dambe u wanaagsan dalkeennaba in aynu ka maarno daris dambe oo aynu soo ibsano runtii waxaa taa kusii dheer shaqaalgelin fara badan dhalinyaro fara badan oo maanta aad soo fiirto dalkeeni maanta oo jaamacadaha ka baxooda aqoonnaba maanta aan shaqa laga haysta warshadani waxay ka mid tahay ta dhalinyarada shaqada u furi doonta mid ka shaqeeya mashiinka mid runtii computerka dul fadhiista mid suuqgeynta ka shaqeeya mid baabuurta wada dhalinyaro fara badan oo dalkeeni ku sugan ayaa maanta runtii shaqo ka heli doona warshadana guud ahaan somaliland iyo mandaqadaba dalalka jaarkeennaba mid manaafacaad weyn ugu fadhida ayay noqon doontaa haddii ay bilaado runtii ku dhawaad iminka 400 ayaa runtii maalgashaday oo warshadani maanta runtii maalgashigeeda ku dhow yahay san xogaal ku hayo haddaba waxaan jecelahay inaan horta ila soo dhaweysaan oo aad runtii gacmo furan iyo weji wanaagsan aad igula soo dhaweysaan runtii akhyaarteena uga timid magaalada Toronto oo habeenkii xalay magaalada soo gashay kana mid ah hawlwareennada shirkaddan uu horkacayo maareeyaha guud ee shirkaddan ee dalka Canada Mustafa Ibrahim Aadan oo inoo jooga magaalada amaba xafladeena sidoo kalena Shucayb oo aad wada garanaysaan oo runtii aqoonyahanka guud ahaan dalka Canada ka mid ah nimanka shirkadda ugu fircoon ee dadaalka weyn kasoo qayb qaatay ka mid ah Cabdikariim Muuse oo isaguna ka mid ah runtii aqoonyahanka sare Soomaaliya ku sugan dalka Canada shirkaddana runtii meel weyn laxaad la ka ciyaaray sidii runtii ay shirkaddani Canada ugu faafilahay sidoo kalena qaatiro oo isagoo socdo inka kamarada duubaya ee kamaradaanka isagoo magaalada Toronto looga yimid afartooda aad ayaanu soo dhaweyna magaalada waxaana lay ila soo dhaweeyey soo dhaweyn kadib kolley waynu bilaaban doonaa salaadii maqribna way soo dhowdahay waa la iska tukan doonaa xaggaa darbaa kolley lagu tukan doonaa marka salaada baatana waynu sii wadan doonaa waxaan haatan jecelahay in aan mikrofoonka aan ugu yeedho ama aan ku soo dhaweeyo mas-uulka aqoon-yahanka xafladdan caawa fadhido ee aynu sugunayno magaalada Ottawa abaabulkeeda iyo diyaarinteeda iyo runtii isku imaanshaha maqeyb laxaad ka soo qaatay iyo meesha bilcoone qurxoon ee caawa runtii joognay xafladda ugu daafurayno magaalada Ottawa qeyb laxaad ka qaatay waa nin aqoon-yahana waa nin Soomaalilana waa runtii fikirkiisu ka weyahay inta ay kalaba waa Maxamed Abshir ayaan jecelahay inuu runtii kelmadii furitaankeedooda anaan ku soo dhaweeyo Maxamed Abshir ku soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم المقصود محمد marka hore waxaan maraya maxamed intii badaniin oo sheegay marka waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo kordhiyo maadaama aan reer Ottawa nahay inaad nala qaybsataan hawshan maanta halka bilowna Soomaaliland maalgashadayno marka horta waxaan doonayaa ahdo wad mahadsantihiin dhammaantiin inta kasoo qaybgashaan meesha waqti badan oo sugayseen weliba badan maanta noo fahimay hali hada inta wixii ka dambaysa waxaan ku dari lahaa waxaan maanta waan ka faa'iideysan dhalinyarta inooga timid Toronto ay noo sheegi doontaa hawsha sida loo maalgashanayo warshaddan maalgashigu waxaa nagu cusub maaha meelo badan baynu maalgashanay oo waxyaaba ugu fiican maanta aynu soo qabsan karno waddanka marka waxaan leeyahay walaalayaal nala qaybsada aniguna laftkaygu maadaama aan ahay representativekii gabaniga xaggan oo qooyin badan la soo shaqeeyeen laftkayga saamiye iyo bardus maax laftkooga aad bay la soo shaqeeyeen عبد المسين يرتو حكوا يوسف شقية أحمد إسماعيل آدم وانتاس أو شيء لودي اسمها كفرية أحمد السلام عليكم مركا وحندوني يعني غلفتي وحنا مدرسين ورشدة وحندوني كيف يستعمل مانتو السؤالات بين اللي بيجيو إنما مش فرية من هذا سيد حلوق الشنايو سيد حكوا كل يعني حكى شغلنا مركا حوش دمانتو سؤاله ويدية وحي كراي هم قلنا أنا دي شقية أبليكيشنات كان لك يعني ولا بوحني وحي ضد كلمة كشنية وماشي يلا هذا حضور سنة عن قف حضور سنة قبل كمبرية مركا أنت أتكلمين وذان مصطفى أنا وديارة مقالة نتشوجا تلفونك يقولي على ماشي يلا سبحان الله سنة الدنيا نقولكم بس نقول لك سنة عاو مركا سؤال هذا قبلنا حشونا دون كوليبا حبة ما نذكر من غرفة نذكر من إن شاء الله
يا سامي في شريو يو فردوس محل فسكو وفرميشن ما بحيان يقول فسكو هذا تقصها ويدان يقعدين ديار إن شاء الله بدنا سنتين لمانتين إن شاء الله نسكتوا كشان عقوب الدين بكفاك مصطفى هذه يدو مسزين ومهسية هي محمد أبشر أنتي كملها حكمة يما مسكي كرامة الله وكل لو جدية يسود ويتها يسود ويبا وشدة يمعلومات كأوتي كثيرة وحنشالها هي وحنو هاي سنة كلي قدروا لاتن مرمي على الصلاة تنوعه ولا تنمر لو تكمل الصلاة تنوعه هاي وحنو قلنا بل فكر كهايسو بودر مارس وشدو محيط هاي سيوا هو ما قشري إنتاج كسر شقيسي معلومات فرصاً أيها كان كنتي لو تكمل كنت داون دونا مصطفى كنتي نوشل دونا ماريها مصطفى إبراهيم هذا ولا تكمل دونا ممكن صوت كله كنتي واحد يقول دونا معلومات فرحة بدل لا ينوه هي مسؤولية ما تاكل لو دافريا شركة تقصد ولا وقت كنتي صديق حدث